barnaamijka kobciye waa barnaamij tixano ah kana kooban 30 qaybood kuwaasi oo taabanaya nolosha qof kasta oo naga mid ah. Kobciye waa daqiiqado kooban oo kobcinaya naftaada ha u daymo la'aan. Waa diyaarintii iyo soo jeedintii al-ustaad Coach Maxamed Ibn Umar. bismillaah walxamdulillaah wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kusoo dhawaada barnaamijkeennii kobciye iyo cashir cinwaankiisu yahay ma ogtahay in ilmaha degan jasiiradda Sumatra ee Indonesia ku taala ay soo socdaan 12 kiiloomitir maalin kasta si ay u yimaadaan iskuuladii ay wax ka baran lahaayeen. ma ogtahay in ilmaha dalka Japan u dhashay ay qaataan inta ay yihiin kalaaska 1 ilaa 6 maadaama magaceeda la yiraahdo akhlaaq oo lagu baro sida ugu wanaagsan ee dadka ula dhaqmi lahaayeen. mase ogtahay in qofka caadiga ah uu awoodo inuu socdo 20,000 oo tallaabo maalin kasta taasoo u dhiganta asaga oo 80 sano gudaheed 6 goor dhulka ku soo wareegay. aqoontu waxay ka mid tahay waxyaabaha keena ilbaxnimada iyo horumarka ummad kastaana. ilbaxnimada iyo horumarka ay gaartaa waxa uu gaarsiisan yahay hadba aqoontoodu intay la eg tahay. aqoontu si ay qofka ugu saameysmato oo uu u noqdo ruux aqoon-yahan ah waxa uu baahan yahay inuu wax badan ogaado, wax badan baaro, wax badanna akhriyo. aqoonta dadka yeeshaan ayaa ku xiran hadba waxa ay takhasuskoodu yahay ama waxyaabaha ay danaynayaan. walow qof walba ay tahay inuu wax ka akhriyo, waxna ka ogaado, wax ka baxsan takhasuskiisa haba yaraadeene. waayo hore ayaa loo yiri wax kasta wax ka ogow, waxna si gaara ugu takhasus. misleedahay meel saxaro ah ayaa lagu beeri karaa galley, mase ku fakartay weligaa in la gaari doono xilli aanu raashinku qurmi doonin. arrinkaa iyo arrimo badan oo kaleba waxaa lagu ogaaday cilmi baaris oo mustaqbalka dhow ma jiri doonto geed hebel kama bixi karo wadan hebel, iyo geedkaas xilliguu bixi jiray lama joogo ee hala sugo ee waa la beerayaa geed kasta xilli kasta. qaabkaasuna waa mustaqbalka raashinku ku wajahan yahay. ma jeclaan lahayd in cunnada kuu soo bislaato diyaarna noqoto adigoo dadaal badan iyo howl badan aadan bixin, isla markaana iska haysta howlo kuu gaara, amaba fadhiya gurigaaga oo wax ku akhrisanaya, amaba iskaga nasanaya fadhiga gurigaaga uu leeyahay. aaladda loo yaqaano Fodini waxay kaliya kaaga baahan tahay inaad ku shubto cajiinkii iyo waxyaabihii ay u baahnayd samaynta cunnada loo yaqaano biitsada. kadib waqti kooban oo aad sugto ayaa kaa xiga inaad hesho biitso si fiican loo diyaariyo oo aad u macaan. aqoonta guud iyo takhasuska cilmiga ah ee qofku ku takhasuso cilmi gaar ah ama qayb ka mid ah cilmiga ayaa wax kala duwan ah. takhasuska ayaa qofka siiya macluumaad iyo aqoon cilmi gaar ah, halka aqoonta guud ku siinayso macluumaad iyo aqoon guud oo ku saabsan dhinacyo kala duwan iyo weliba culuum badan. tusaale ahaan shahaadada jaamacadda laga qaadanayaa waa muhiim, lagamana maarmo. hase ahaatee qofka ma siiso aqoon guud mana ka dhigto qof ka warhaya arrimo badan oo taabanaya noloshiisa, ee kaliya waxay caddayn u tahay qayb cilmiga ka mid ah oo uu wax ka soo bartay. macquul ma aha in noloshaadu ku baxdo cayaar iyo sheeko iyo baraha bulshada oo aad taagan tahay saacad kasta. walow intaasoo dhan loo baahan yahay, haddana waxaan ka wadaa in qofku uu waqti maalinkiisa ka mid ah uu geliyo aqoonta. isweydii maalinka markuu dhammaado wax aqoona ee maanta kugu soo biiray, waxa aad siyaadsatay iyo waxa caqligaaga iska bedelay. maanta aqoontu waxay noqotay mid aad u sahlan, qof kastaana uu heli karo oo ay ka xigto uun inuu riixo batoon. gal internetka oo weydii wax kastoo aad u baahan tahay inaad wax ka fahanto, kuna baar afafka cilmiga lagu qoro midood. waxaana si sahlan kuugu soo baxaya boqolaal ama kumanaan qormo oo laga qoray arrinkaas aad baarayso. amaba YouTube-ka gal oo baar cilmiga kala duwan iyo aqoon guud, waxaad helaysaa muuqaalo tiro badan oo midba dhinac ka sharaxayo wixii aad raadinaysay. waagii hore qofku si uu u helo
hal nuuc oo ka mid a aqoonta ayuu wuxuu soo safri jiray oo uu socod dheer kusoo jiri jiray 3 bilood amaba ka badan mararka qaar si uu u helo aqoon una gaaro halkii loogu sheegay aqoontaas. ninka lagu magacaabo Baqiy ibn Mukhlid oo ka mid ahaa culimadii waaweyneed ee soo maray muslimiinta saldhigiisuna ahaa Andalus oo Spain hadda ah ayaa ka sheekeynaya qaabkii uu aqoonta u doonay. waxa uu yiri markaan dhammaan culimadii waaweyneed ee Andalus joogtay aan dhammaan soo wada maray kana soo qaatay aqoontay xambaarsanaayeen ayaan iri maanta inta dunida dusheeda saaran yaa ugu cilmi badan. markaas ayaa liigu yiri al-Imaam Ahmed ibn Hanbal. markaas ayaan go'aansaday inaan dhankiisii u soo xirxirto mana haysan sahay igu filan iyo gaadiid iga keena Andalus oo i keena Ciraaq oo ahayd halkii saldhiga uu ka dhigtay Imaam Ahmed. markaas ayaan socod aan lugaha ku soconaya ka soo bilaabay Andalus oo aan hadba tuulo ku hakan jiray oo aan wax kasta ka shaqayn jiray si aan u helo sahay i gaarsiin karta tuulada ku xigta. ilaa ay igu qaadatay 5 sano ayuu yiri socodkii aan u soo galay inaan soo gaaro Ciraaq si aan ula kulmo caalimkii muslimiinta xilliga Imaam Ahmed ibn Hanbal. markii uu si dhib badan uga helay aqoontii uu imaamka u soo doontay ayuu dib ugu noqday Andalus oo u bilaabay faafinta aqoonta uu soo xambaaray iyo inuu alifo tafsiir noqday mid aad cajiib u ah oo culimo badani amaaneen. u fiirso dhibka aqoonta loo mari jiray waagaas 5 sano ayuu u soo socdaa oo xataa uu ka shaqeynaya shaqo kasta oo uu ku helayo wax uu ku noolaado siina gaarsiiyay tuulada xigta. markaasuu weliba iska dhigay qof tuugsanaya oo kale si uu imaamka uga qaato cilmiga maadaama xilligaas imaamka loo diiday in cidna ay u tagto waxna laga qaato. isagoo soo ekeysiyay ruux tuugsanaya ayuu iridda u garaaci jiray. markuu imaamku iridda ka furana wax yarna wuu siin jiray oo raashin ah hal xadiidna wuu u meerin jiray. laakiin wuxuu ka dhaxlay dhibka iyo rafaadka uu u maray aqoonta inuu noqday aqoon-yahan weyn oo aan loo geli karin. markuu ku noqday Andalusna dhammaan culimadii joogtay u soo bandhigay inuu qabto jagada garsooraha guud ee dawladda uu ka diiday oo wuxuu doortay inuu sameeyo aqoon-yahano aqoonta ka xambaara. saxaabiga weyn ee Abu Darda ayaa waxaa laga wariyaa inuu nin u yimid asagoo jooga Dimashq caasimada Suuriya kuna yiri waxaan kaaga imid magaaladii nabiga oo ka wada Madiino waxaana maqlay inuu jiro xadiid aad nabiga ka wariso. Abu Darda ayaa yiri dan kale umaadan imaan miya? markaasuu ninkii yiri may. oo ganacsi umaadan imaan miya? markaasuu ninkii haddana yiri may. oo xadiiskaas waxaan ahayn umaadan imaanin miya? ها مركاسو أبو درداء يري فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة والملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وأورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومعنيه سيها قفكي qaada wada uu cilmi ku doonayo alle ayaa qaadsiiyay wada kamid ah wadooyinka jannada. malaa'igtuna waxay u fidisaa garbaheeda ardayga raali ahaansho awadeed. caalamka oo dhan ayaana u dambi dhaaf weydiiyay kuwa cirka joogay kuwa dhulka joogaba xataa kuwa waaweyn ee biyaha ku jira. caalimka iyo aqoon-yahankuna waxa uu ka wanaagsan yahay midka cibaadada uu sameeyo aan aqoonta lahayn sida dayaxa jooga 15aad uga fiican yahay kawaakibta kale. culimada waa kuwii dhaxlay nabiyadana diinaar iyo dirham lagama dhaxlin iyo lacag. waxay dhaxal uga tageen cilmi iyo aqoon. qofkii qaata aqoontaasna wuxuu helay qayb weyn. ibn Mubaarak ayaa lagu yiri intee in la eg ayaad arday ahaanaysaa ama cilmiga iyo aqoonta kororsigeeda wadaysaa? markaasuu yiri waxaaba laga yaabaa inaan weli qorin weedhii aan ficil lahayd. dhageystow liidnaanta aqoonteena
iyo hooseynteeda waa midda maanta meesha aan naallo iyo dib u dhacaanna biday. waxaana looga bixi karaa inaan dhammaanteen u jeesano raadinta cilmiga nooc kasta uu yahay oo aan ka qaadano dadka ugu wanaagsan ee leh aqoonta aan u baahannahay maanta dunida. bedel saaxiibadaada hadday yihiin kuwa aan kugu caawinayn aqoon kororsi oo kuwa kala samayso, dhammaantood bedel maxaad u haysataa. ama waa inaad adigu bedeshaa iyaga oo aad saameyn ku yeelataa una soo jiidaa dhanka aqoonta, dhanka iftiinka iyo horumarka. casrigan aan joogno waxaa batay oo si sahlan loo heli karaa qaababka loo kororsado aqoonta, oo waxaad awoodaa inaad buugaag akhriso ama kuwa maqal ah dhagaysato ama aad kuwa kale daawato xaalad kastoo aad ku jirto. haddaad fadhiso ama jiifto, haddaad howl qabanayso iyo haddaad firaaqo tahayba, waxaad awood u leedahay inaad kororsato aqoon. inaad leedahay aqoon guud macnaheedu waxa uu yahay inaad fahmayso waxa hareerahaaga ah oo aad ogaal leedahay, inaad la sheeko wadaagi karto dad leh takhasusaad kala duwan, fahmi kartana markay ka hadlayaan takhasuskooda. aqoonta guud ayaa kugu caawinaysa in caqligaagu furmo oo aad hesho culuum kala duwan. fahamka aad nolosha ka haysataana uu isbedel aad u badan ku yimaado, wax badanna aad ogaato. mahadsanid. diiwaangeli wixii aad faa'iiday, isku day inaad dhaqan geliso siina faafi.